dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo badankoodu ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa aad isha ugu hayay doorashada golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana maanta oo ahayd markii loo madlanaa qabashada doorashada madaxweynaha ee Jubbaland ay dadku intii doorashadu socotay ay si dhow ula socdeen tabinta tooska ah ee Jubbaland TV markii doorashadu soo idlaatay ee uu xilka madaxweynaha ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa dadka ku nool Dhadhaab ay socod ku soo mareen wadooyinka suuqa xerada Xagardheer waxaana ay ka hadleen dareenkooda. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Xasan Cabdullaahi Maxamuud waa qaxootiga Xagardheer waxaan rabaa inaan yar ka iraado doorashada saaka ka dhacday Jubbaland. أوله وعن ما دعينا الله سبحانه وتعالى أورنا وافجيي أقرارينا إن دور شراء سيسي حلالة أو إبلانا يكون دعوه ما هذا إلهي باسكاله مركز اللبات وعن ما دعينا قدي صوت دياري قابك وناكسن أو أسعتي دور شراء Jubbaland إيه ما دعينا مركز الدحات وعن هم بريو دريا دور شراء oo ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaan filayaa Axmed Madoobe dadka doortay waa baarlamaankii Jubbaland waxa lagu doortayna waa kalsooni ay ku qabeen isna mar labaad baan u mahadcelinayaa marka saddexaad waxaan baaqnabada u dirahayaa mucaaradii dadkii mucaaradka ahaa arrintaas wuxuu ka jiidahayay waxaan leeyahay waxaan waa tartan nin baan ku guuleysan lahaa haddii lidinka guuleystay ma aadan guul daraynin waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad nabadda Jubbaland ku dadaashaan dowladda la soo doortay ma aha dowlad ajnabi waa dowladdiini waa tii aad taqaaneen waxaan idinka codsanayaa mar labaad inaad raacdaan oo gacmo furan iyo qalbi furan ku raacdaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. salaan ka bacdigeed waxaan mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed ee Jubbaland degan ee sharafta leh ee wadankii nabadgelyada ku soo celisay ee jecel yaan salaamaya waxa kale mucaaradka walaalahana ee iska dhigaya wax aan dadka ka dhalanin raalli ahaada marun baa nin uu helay mar walba inagu hamoodina in la idiga helay walaalkiin hadduu helay saan anagu u jecelahay qaxootiga inaad u jeclaataan anigoo Ibraahim Maxamed Xasan oo jooga Gaarisa xeryaha Dhadhaabeed ee North Eastern jooga waxaan u mahadcelinayaa doorashada ka dhacday Jubbaland ee lagu doortay Axmed Maxamed Islaam waxaan haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay annaga nabad baan la deeqda nin nabad deeqo nabad baan la deeqda waxa weeye 30 sano qaxoonti iyo dib iyo rafaad iyo silic iyo burbur iyo ku jirnay bada ilmaha ay ku dhamaadaan annaga nabadgeliyaan rabnaa Soomaali oo dhan inay nabad ka dhaclaan rabnaa inay israaclaan rabnaa inay midoodaan rabnaa Soomaali inay hal far noqotaan rabnaa in la walaaloodaan rabnaa ma rabna in wixii aan ku jirnay iyo dhibkii aan ku jirnay iyo rafaadkii iyo silicii ilmaanagu badaha ugu dhamaanayaan adduunkii oo dhan aanu ku bilqanahay inaan ku noqono ma rabno waxaan rabnaa Axmed Madoobe insha Allah inuu noqdo ninkii iskaan raacin lahaa Soomaaliyeed u gudbi lahaa Jubbaland wuu israaciyay wuu midoobay 7 sano ee uu ku jiray Soomaali weyn mahad weyn bay sheeganaysaa aad iyo aad baan u taageeraynaa madaxweynaha aad iyo aad baan u taageeraynaa waxaan ka codsanaynaa walaaladannada xogaa wax ku yar jiraan inay sidaan u taageeraynaa nala taageeraan berri 4 sano way iska dhamaanaysaa ninkii ilaahay cimri soogo berri bay fuulayaan walaalkood inay taageeraan gacan qabtaan ee garab istaagaan gacmo isku jiro gobol jir baa wax ku gooyaan baa la yiri hadafta faraaruq hadduu ina galo shisheeye hadduu ina dhex galo shisheeyanimo waa ta halkan ina keentay shisheeye waa ka halkan ina keenay inaan ka tanaasulaan rabnaa waxaana imada hareeraha iga taagan waa carruurta halkan ku dhalatay carruurta nabadgelyo rabtaa ma rabto col iyo rafaad iyo silic iyo dhib kii aan soo marnay ma rabto waxaan ku baaqayaa in la raaco dowladnimada in la raacaan rabnaa baarlamaankaan u hambalyeynayna kuwa la dooran doonaan u hambalyeynayna maamulka Jubbaland baan u hambalyeynayna dowladda waxaan ka codsanaynaa inayna taageertaan ka codsanayna inayna dibadiyaysan ma rabno. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waxaa la Saara Cali Dubad shucuurtayda maanta lama soo koobi karo bilahan oo dhan aad baan u faraxsanaa rajaan sugaayay rajadii baan helay alxamdulillah waxaan maxay ahayd shacabka u sheegaya nabadgelyada hore Kismaayo ka jirtay inay sii socon doonto in Kismaayo nabadii ka dhacday wali 20 sano ee dambe Axmed Madoobe waxaan codsanaynaa
soo banaan baxay waxaan farxadayda lama soo koobi karo ma hadli karo waxa ku hadla ma garanayo insha Allah banaan bax weyn baan u baxaynaa oo dhacaya Axmed Madoobe Juu Axmed Madoobe Juu waxaan Madoobe Juu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وفاطمة علي محمد وعن سلامة يا بوشون وصوبنا بحدي وعن سلامة يا ثمان راجل بلين وعن سلامة يا مدحوينا هذا الصوت دكتور ورانا حلكة هاي وعن ذي الله وذي سلامة يا بقولك بس عشان وعن ذي الله سيدنا كصالة وراي الصالة وعن ذي الله دتك ولا عليه إنه لقرب تاجنا وعليه إسحنين وعن ذي الله مرضى بهري دونتان وعن ذي الله ودنك حسلون يوناك هالجوالو يسويس وكسر marka hore haduu xiriyahay inta ma aanan soo doortay intaas oo umada haddana sidaad iyo si ka si fiican baan rabnaa madaxweyne mudane in aad ku wada sida aad ku wadi karto inta walaalana ay niyo khayr u sheegaan alxamdulillah umada Jubbaland khayr iyo nabad iyo barwaaqo u tahay u sheegayna Axmed Madoobe ha guuleysto Axmed Madoobe ha guuleysto ha guuleysto أحمد عبد الله جامع أحمد دير Jubbaland TV داداب